وما سنتهي في هذه السين وحنقلنا مركن كيس كلا وحساسية وسلاح أيضا النساء اشتغل هذا كسابسا وأنا كيسكا سرقالد إكرام تحليل وحن دونيا إنه فرو كيسكاس أو مهم أو ضدك الصوماليات أو دن أي إيجيان أديك فهد أنا عضو تهاي بالدقة هذا النساء ما دام صوع كنتي وكيس كم مقران شهر سرقالد ده أو هاد جبار كترسن هيدا المدكوس سمن سند عن رق يروح ميل أي جوكتو من نور شهر مدمته عن عنا وراهين إهل كيدنا كربوين كويسة يضدك الصوماليات نسيابك كل الدول سامين وقول كيس كان أيان ربعه إنه فرو وحلا من سنة أنا حكتي سو أردنا على هيسو ما يجا أقبليسا إن كويديو أن يجي جوابته سيدا الصحراء يعد معلومات كيسو عايز. صلوا. دمات كبشي لحد لواكم كوبي لغات بشي جون. وحصوش عب حكيس كم مكان جواد مكان إلى ما انتظر أن ورئيسي كتشرنو إكران تهليل فارح. مقرن سا عديق في هذهان إكران. إكران واقعنا. أيضا نقلنا قيس كذا نقلنا هو أيضا ما نقلنا فمل كذا نقلنا متقنا دودي سواء قلنا هذه وفهد ياسينة وها أجسمه أسري النساء بل إكران نوقع أنت تتقاند أنت هيدا أتمد وذا أنت دح مرتي هي وحي كان الحريرة لبا موضوع واي مدو حوا أيضا متقناها وأقلنا وفمل كذا نقلنا وضد ولي وفملها النهي هيئة أنت أنا كصابيرين حلقي تليا مدة أنا تليا كلا نود حي عبد الله سنبلوشي ويسمى هذا وضع تقارنه والله وجه هيئة قاسمة كنقضي مركز اللبات بو هيئة كصادري وحكى دقي بروتوكول كيسة مر لبان وحل أي شيء إنه حفيز عصب سميه ولا حقوق الإنسان كأودي ولي بعصبة مركز هيئة كعصبة لكن أنا أنت هيئة مدح كنقضي وأنا قاسمها كنقضي قاسم كحيان كان كبلابي أنا قاسمها نقضي أنتاس إكران هيئة كما شقينين وما ينقونين حبين كشقيسة حل أمانة مقعابين وحوذ شقينا أنا مدحمرين لكن ناجر كهيئة سردون كقف كمر هدو كصوبيرو أنت بدن حبين مديس وين نولاتا مركي للربع دي بلو أكتيفيت قرايا ولا استعمالها لكن وش هيئة دي أيدوغو فائدة ستا أو استعماشها أو كشقيسة لكن أنا شخصيا أنت أنا هيئة جوجي وحلنا أو ما يقبلين وذا الشقين هيئة أيضا أنا مدحمرين marna kuma noqon xog haye iyo kaaliye xafiiskaaga adiga faadhan maya waxay u ahayd taliyay igu horeeyay waliba taliyay kala noo dhaxeeyo hadaan ku sheegay protocolkiisa kamid ahayd waliba saasa la igu sheegay in protocolkiisa kamid ahayd asagana hay'addu ku soo diray adigu intii aad hay'adda timid marna ma la kulantay waa la kulmay ha dhowr jeer waa aqaanaa hadayada aqaanaa familkeeda aqaanaa hooyada ba aqaanaa laakiin shaqo ahaan hay'addu ma aanan kulmin inay qaybta amniga ee hay'adda NISA ay haysatay qaybta internetka ee amniga cyber security ay haysatay oo xilliga hay'adda joogtay ay booskaas ka shaqeynayso xafiiskaasi sax ma waxaan ku iri intii aniga aan hay'adda labada xil ka hayay wax shaqo ah oo loo magacaabay iyo wax shaqo oo hay'adda u qabatay ma jirto intii aniga iga horeysayna waxa la ii sheegay labada shaqo inay haysay habeennimadii 26 Juun muuqaal la faafiyay wuxuu muujinayaa gaari cad oo la xaqiijinayo in ay NISA leedahay in gabadhaas lagu qaaday madaxdii ka sareysayna ay shaqo ugu yeereen hay'adda sida ehelka gabadhu ay sheegeen markaas ayaana rag iyo ruux ugu dambeysay fahad waxaan ka xumahay gabadhaas kiiskeeda yani meel far badan baa la marsiiyay habeenkaas ay sheegayso horta wadanka ma joogin dalka waa ka maqnaa anigoo maqan bayna waxa dhaceen haddii si aad ogolaato inaan si tafsiir kugu sheego waana markii u horeysay aan kiiskaas ka hadlayo gabadhaas Allah u naxariisto mu'aamarad ajnabi iyo Soomaali isla sameeyeen waliba ay Soomaali sameysay baa lagu shirqoolay waxaana looga dan lahaa in hay'adda Soomaaliyeed magaceedana lagu dilo ayadana lagu dhibaateeyo shirqoolkaas dadka sameeyay dawladda ka tirsan bay ahaayeen hadda rabtida magacyadooda ku sheegi karaa waxaan rabaa si faahfaahsan fahad inaad iigu sharaxdid kiiska Ikraan min bilow min dhamaad adigoon waxba qaranayn
magacyada dowladaha shakhsiyaadka ilaa suu ku bilowday ilaa suu ku dhammaaday waxaana ahaana dhagayste su-aalaha ka soo baxa aan wax kaa weydiin waaye waa mahadsan tahay horta kiiskaas haddaad og tahay waxaa la diiday oo xataa nafteeda khatar loo geliyey riboodka hay-adda ay ka hayso inay golihii amniga qarankiisu maalintii loo madlay in golaha amniga qaranka la geeyo warbixintaas oo guddiga amniga qaranka la hordhigo waa maalinta aniga Jabuuti lagu xiray oo nafteeda khatar la geliyey oo nolosheeda khatar la geliyey ayada mawduuceeda markaa laga yaabo inaan ka sheekeysano hadda ma galaayo taas dantii laga lahaana waxay ahayd inaan xamar imaanin oo aan warbixintaas dhiibin taasoo kaliftay inaan dalka dib uga soo laabto oo diyaaraddii la soo celiyey oo dib loogu soo celiyey meeshii aan ka imid horta waxay ku tusinaysaa dadka mu'aamarada gabadhaas sameeyey inaysan raalli ka ahayn xogtaas inay baxdo laakiin maanta xogtii baan adiga ku siinaya fadal soo dhawow gabadhaas mu'aamaradeeda siday u bilaabatay ilaa u dhammaatay waxay shaqo u doonatay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble gabadha markay shaqo xafiiska u doonatay meeshii ay sugaysa in shaqo la siiyo baa dad mu'aamarad ajnabiyana ka shaqaynayay rabay dalka inay khalkhal geliyaan baa waxay u isticmaaleen gabadha nafteeda in khatar la geliyo nolosheeda khatar la geliyo mas-uuliyadda koowaadna qofka qaadaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waa gabadha maalinta gaariga lagu soo qaadayo waxaa loo ballamiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo u kaxeeyo ku yiri ra'iisul wasaaraha shaqo ku siinayo maalmahaas ku noqnoqota xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqo lagu siinaa lagu yiri ayadana shaqo raadis ahayd mar waxay ka fikirtay guddiga doorashada inay oo Hirshabeelle inay gasho mar waxay ka fikirtay inay xildhibaan Hirshabeelle noqoto haddana way iska daysay markii dambe xafiiska ra'iisul wasaaraha tir shaqo u doono sidii wax u dhaceen tafaasiisheeda inteeda badan ma raba hadda inaan galo laakiin intaan kuu sheegi karo waxa waaye gabadhaas gaariga lagu qaaday nin la yiraahdo xildhibaana oo la yiraahdo Mahad Salaad oo hadda rabta feelkiisa mar kale aan furayno ama su'aalo kale ku furayno baa la kulansiiyey asaga gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxaa la geeyey Daar es Salaam xaafad la yiraahdo xamar ku taala oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin gurigaas laga qaaday waxaa la marsiiyey Shabeellada hoose meel jilib u dhow baa la geeyey halkaasaana lagu dilay nin la yiraahdo Mahad Karatay oo madaxda shabaabka kamid ah operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin Mahad Salaad ra'iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa wuu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayana wuu ka warqabay aakhiro ay adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble farsamada lagu fuliyayna alcadaala iska lahaa gacanta fulisayna Mahad Salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab sidaas aan kugu sheegay uu qorshahaygu ahaa inaan guddiga amniga qaranka hortooda ka sheego laakiin si aysan xogtaas u bixin waxa la qaaday 4 talaabo hay'adda in la dhoofaada shaqada laga joojiyay taliye cusub in loo magacaabo waad ogtahay in taliye cusub loo magacaabay aniga eelaboorka la igu celiyay Djibouti anoo transida oo dawladda Djibouti la isticmaalay oo la dhaxgalay markii aan xamar imaadayna waxa la diiday shirka in la qabto ورئيسه wuxuu diiday inuu shirka soo qayb galo marka hadii kiiska inta talaabo oo la qaado waxaad ka garan kartaa cidda qaadaysa maxay kiiskan u qaadaysaa taliyaha nabad sugidda hadii la rabo in la baaro shaqada laga joojiyo taliye kale la magacaabay safarkii baa loo diiday shirkii baa la diiday waxay ku tusinaysaa waxaas oo dhan waxa loo sameeynayo lixaajati fi nafsi Yacquub wax uu og yahay baa jira waa wax asaga uu og yahay inuu sameeyay maadaama uu sameeyay cid allaale iyo cidii warbixintaas sheegi kartaan in la dagaalamo dagaalku ra'iisul wasaaraha uu waday oo hay'adda ku qaadan laba hadaf oo kala ahaa sumcadda hay'adda in la dilo institutionka dawladda la burburiyo waa meesha ajnabiga ay ka soo galeen oo ay rabaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka maadaama ay dawlado fara badan dhaaftay oo qaarkood dariska ay ka hormartay in dib loo soo celiyo heerkii faragelinta maalinta aan ku sheegayna lagu soo celiyo dawladda ajnabiga ee kiiska Ikraan fulintiisa fududeyntiisa qaadatay waa laba dawladood mar raba hadda magacooda inaan sheego dadka Soomaaliyeedna waa fahmayaan laakiin mar raba inaan magacooda sheego laakiin Fahad waxaad sheegtay magacyo ay ka mid yihiin Mahad Salaad oo hadda hay'adda haysta injineer Maxamed Xuseen Roble oo ra'iisul wasaare ah iyo Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta sidaas la mid ah dadka ajnabiga ah ee kiiska lugta ku lahaa ee aad eedeynaysid dadkaas dawladahaas labada sheegtay inaan magacoodid ayaan ka doonaynaa hadda inaan sheego diyaar u bihi asbaab jira dartood waxyaabaha jira markaad mas'uul sirdoon soo noqotay
fasax u baahantaa wadan iska sheegi karin hadda fasax laakiin dadka Soomaaliyeed waa og yihiin dawladahaas aan ka wado way yaqaaniin imaaraadka iyo Kenya miyay noqon karaan adiga dhahay ani ma dhihin adaa dhahay gabadha gaaraa lagu qaadaysaa sheegtay waxaa la geeyay xaafad magaalada Muqdisho kamid ah gaarigana waxaa sheegtay in loogu ballamiyay xafiiska wasaaraha waliba aniga wadanka waa ka maqanaay markaas sidku ogaatay waxaan rabaa inaan kugu daro xataa aan ka ilaabay dadkaas mar kastoon aniga wadanka ka maqanahay mashaariic sameeyaan kiiska ikraan waxaa la alifay anoo maqan kiiska hay'adda isbedel lagu sameeyo waxaa la sameeyay anoo maqan 3 bari ka horna ma aqaan la socotay isbuucii hore gurigeyga la galay ciidankii iyo qalabkii iyo wixii yaalay baa la qaatay anoo maqan hal mar anigoo jooga waa awoodi waayay inay wax sameeyaan sidku ogaatay xogtan dalka dad ka maqnay waa xog culus oo xasaasiya in dad mas'uuliyiin maanta ah oo mas'uuliyiin xilal sare haya oo waliba booska aad joogtay niisa sargaalka loo magacaabo mas'uulka loo magacaabay aad ku eedanayso inuu kiiska isagu wax badan aan ka ogahay intaas kaliya ma aha qal dhibaato far badan oo amni darrada dalka ka dhacday qayb bay ka ahaayeen dadka aan ku sheegay ilaa ay gaareen xataa dariska inay dhibaato ka geystaan professor Abdiwahaab oo Nairobi jooga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka shaqeeyay oo dhaqaale ku bixiyay oo systemka dawladda Kenya iyo dad kala duwan dhex galay oo gaangis rabay inuu isticmaalo qorshahan wuxuu ahaa professorka in la dilo waxa la rabay in loo dilana hal shay bay ahayd maxaa dawladda Soomaaliyeed qaran Soomaaliya u difaacaysaa intaas loo dilay waliba professorka waxaan diyaar u ahay in arrintaas xogta uga baahan yahay waqti kasta uga baahan yahay ka siiyo kiiska ikraan doorka mahadsala waa hadda hay'adda niisa jooga maxay ahayd intaan ku sheegay bay ahayd haddaad rabtid kiiska gabadha intuu ku lahaa waxyaabo kala jira laakiin kiis gabadha haddaad dubtoontid intaas buu ku lahaa mu'aamarada ayaga wada sameeyay gacantii fulisana mahadsalaad buu ahaa yoolka laga lahaa maxay tahay laba arrimood laga lahaa in hay'adda sumcadeeda lagu dilo amniga dalkana lagu khalkhal geliyo mahadsalaadna amni darrada dalka waxyaabo badan oo khalkhal ku sameeyay in ka badan 60 maalmood oo gabadha la baadi goobayay fahad uu gabadha shakhsiyan ehelkooda garanayay family ay ahaayeen ay garanayo ay daris iyo wax kasta ahaayeen sargaalada hay'adiisa ka tirsanna la weysanaa oo la dilay 60 maalmood ka bacdi September bilowgeedii ayaa soo saarteen war saxaafadeed aad u hooseeya luqadda loo isticmaalay oo lagu baahiyay telefishinka dawladda iyo warbaahin dawladda oo lagu sheegay in gabadha ashaab dileen kadib ashaab maalin kadib way beeniyeen sheegashadiina ehelkii gabadhuna waxay sheegeen in ay la xariireen al-shabaab oo ay diideen inay iyagu falkaas geysteen horta al-shabaab ayaa diiday fahad inay sheegato dilka gabadha ehelkeeduna waxay sheegeen markay al-shabaab la xariireen inay yiraahdeen anagu ma ogin horta waxyaabaha aan aad uga calool xumaado waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha qaranka intuu maalmaha ka mid soo istaagay in asagii al-shabaab isku luqad noqdeen hadda xusato wuxuu yiri hay'adda warbixinteeda ma aaminin kuma qancin taasoo macnaheedu tahay mid shabaabkan rumaystay taa laftigeeda waxay ku tusinaysaa shaki abuuraysa qofka oo wax fahmi kara ra'iisul wasaarada dal hay'adiisi amniga warkeeda intuu u beyniyo mid al-shabaabka uu rumaysan kara familka gabadha hooyadeedani waa la fariistay markaan la fariisanayna marqaati bay lahayd waxaan u sheegay laba kalmadood waxaan ku yiri hooyo kiiskan aniga gacanta ku haya baaritaan baan wadaa khayd baana ay baxay yani xarig baa ay baxay xarigaas inta uu iga dhamaanay iga warsug laakiin hooyadii hooyay noqotay way jilacday dad siyaasiyiinna waxay damcayeen inay kiiska isticmaalaan sida la socotana kiis gabadha waa la siyaasadeeyay gacantuna ka baxay annaguna marka mar hadii wixii gacanta ka baxeen annaguna fawdadii meesha jirtay inaan qayb ka noqono diyaar uma nahayn meeshii ay ku habboonayd in lagu sheegana guddiga amniga qaranka ahayd guddiga amniga qaranka inaan Soomaaliya galaab la diidayba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambeeyay asheego aruntiisa aan mareena uu og yahay aruntiis laakiin adaa lagu eedeynaya ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in uu markuu wasaaruhu ma oranin Fahad baa ka dambeeyay horta waxa uu sheegay hal mar ma dhihin waxa uu sheegay maalintii ugu dambeysay ee Muqdisho uu ka hadlayay ee 30 Maarch ahaa in 14 xildhibaanada baarlamaanka Abriil la dhaarin doono kuwii ikraan iyo aamina dilayna halka lagu cadaalad marin doono oo laga hor istaagi doono inay cadaalad ka dhuntaan
cidda kaliya ee 328 mudane baarlamaan ee gobolada laga soo doortay shahaadada loo diidayna waa Fahad Yaasin soo kama dhigna cadaaladda ra'iisul wasaaruhu raadinay ama uu sheegay inay adiga ahayd in baarlamaanka laga reebo si labada kiis aan cadaaladda uga dhumo fiiri meel fiican baa dad ka soo gelisay anuu ma rabin inaan personal ka dhigo in aniga xildhibaannimada layga xanibo waxay ku tusinaysaa ra'iisul wasaaruhu xogta aan ogahay buu wuxuu aaminay haddaan xildhibaan golaha shacabka dhex fariisto inaan wax oo dhan ka shifi doono laakiin shakhsiyadeeda ma yaqaano shakhsiyadeedu xildhibaannimada golaha shacabka dhex fadhiyo kuma jirto shakhsiyadeedaan leeyahay waa aniga maanta kuu caddaynaya oo kuu sheegaya ra'iisul wasaaraha xaaladda xasaasiga dalka jirtay baa laga yaabaa in looga aamusay laakiin dadka Soomaaliyeed oo adigu kamid tahay inta dib u dhageysato wuxuu afkiisa ka sheegay ciddii samaysay baan aqaanaa muxuu sheegay waa ciddii samaysay soo mas'uul kama saarna muxuu ugu sheegi waayay hay'adaha garsoorka muxuu ugu sheegi waayay hay'adaha amniga wuxuu yiri u fiirso hadalkiisa al-shabaab baa lacag la soo siiyay oo jidkay soo martay oo waday soo martay oo qofkii soo qaadaan aqaanaa waa ra'iisul wasaarihii dalka mutalaabo ka qaado muu sheego sidaan hadda anigu u sheegayo muu u sheego muu ficil sameeyo maxaa u diiday laakiin ana hadda kuu sheegayo waa runtiisu wuu ogyahay cidda samaysay waana asaga iyo inta ku xeeran anaga taa dambe ma dhihi karno adiga eedayntaada waa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Fahad Yaasin maalin ka mid ah markii Djibouti lagu xiray maraan ismaqalnay markii lagu soo celiyay kadib waxaad ii sheegtay in shirka amniga qaranka aad tagi doontid warbixin halka ku dhiibi doontid maanta waqti badan ka soo wareegay maxaa dhacay oo inta dhan kiiskan heerka gaaray ee xogtiisa ee sargaalad aad garanaysid faamilhaan u garanaysid aad dadkooda dhan baan garanay qaraabo dhan baan garanay hay'adda aad madaxda u ahayd kamid ah askartaadii ama dadkii ugu dhawaa inaad tiraahdid intaas ka aamusnaatid maxaa ku kalifay mid waxa ahayd meesha institutionska dawladda aniga taliyaha nabadgelyada Soomaaliya soo noqday ka bacdan la taliyaha amniga qaranka noqday meesha ay tahay horta warbixinteeda inaan geeyo waa guddiga amniga qaranka meeshiina shirki inuu qabsoomaa laga hor istaagay wasiirka cadaaladda loo diiday inuu ka soo qayb galo wasiirka amniga loo diiday inuu ka soo qayb galo ra'iisul wasaarihi baa diiday inuu ka soo qayb galo haddii ra'iisul wasaarihi uu ka soo qayb gali waayo waxay noqonaysaa garab ka soo horjeeday oo sheekaystay buu u fasiranaya anuguna meeshaan rabay warbixinta inaan ka jeedo waxay ahayd asagoo fadhiya inaan sheego haddii taa ay hirgeli weysay laba sababood baa jirtay mid dalka xaalad doorasho ku jiray maana rabin fulkaano kale inay qarxdo buu qarxo lambar 2 madaxda la socota madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo wuxuu xakameeyay hay'adaha amniga ah inaysan gacan aan aamin ahayn aysan galin gacan aan aamin ahayn markaan ka wadana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo rabay hay'adaha amniga inuu dhex galo taliyaasha bedelo wadanka oo dhan uu qalalaasa galiyo waxyaabihii loolanka ahaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka dhigay siyaasad laakiin annaga waxay noo ahayd dalkan bal inuu taagnaado inta doorashada laga gaarayo haddii Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu soo laabtana khayr haddii kalena qofkii kale loo dhiibay uu go'aan gaaro marka haynta in la haayay baa keentay bal horta meel in lagu simo Fahad gabar dhinac gabarka ah Soomaaliyeed dhinac sargaaladka ah hay'ad ka tirsan nisa dhinac muwaadin Soomaaliyeed oo la weysan yahay xogteeda maxaa ka muhiimsan oo la sheegi lahaa bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka hadda xogtu waa laba dhinac yaa gabadha dhibaatada dilka u geystay waa sheegnay yaa ka dambeeyana sababtan u sheegi weyna waa ku sheegay waxaan ku yiri goliyaan ka sheegi la waa la diiday laakiin waxa la wooday inaad shijir ay qabato sidan oo kale hada saas institutionada dawladda ma shaqeeyaan yani qarannimada Soomaaliyeed iyo hay'adaha Soomaaliyeed waxa la fiiriyaa waxa aad sameynayso maxaa ka dhalan kara aniga inta nabadgelyada madaxda ka aha intaas oo file oo sensitive oo khatar ah ay soo maray waxaan ka shaqeynaya ma xakameyn kartaa ha waxa xakameyn kartaa hada xakameyn kartaa dadka qalqalin laakiin hadda ku weydiin hadda inta cadad soo istaagay intaan ku sheegi lahaa waxa la dhihi lahaa dawladda mucaarad target gareynaysa wax kale lama dhahan laakiin maanta dadkii baa qaarkood xukun ka haya saad u aragtaa maanta inaad sheegtid ma xogtaas waxaan u arkaa in la helay fursad lagu la xisaabtamo dadkii dambigaas geystay ee falkaas ku kacay Fahad Yaasin fursad baaritaan lagu sameeyo fursad xaqiiqada lagu gaaro Fahad Axmed Daahir
ehelka gabadhu maxkamad bay furteen waxay maxkamadda dadka looga la qoray magacyadooda adaa kooka diyaar ma u tahay inaad maxkamad iska difaacdid waad hortagtid waxaan rabaa inaan kuu sheego su-aashaada anoo kaaga jawaabayo kiiska maxkamadda ayaa furay maxamed xuseen rooblaa furay horta iyo raggii la shaqaynayay isla maxkamaddii baa anugu ka dhagaystay iyadoo la leeyahay Fahad Yaasiin waa beri isla maxkamaddii baa tiri warqad soo saartay oo tiri Fahad shuqul kuma lahan raggii kale oo magacooda la sheegay shuqul kuma lahan hay'adda nabad sugidana shuqul kuma lahan labada jeerna anugu idaacaddan ka dhagaystay waxaan diyaar u ahay xaqiiqadaas cid allaale iyo ciddii dembigaas geysatay in la dabagalo la maxkamadeeyo xuquuqda ay mudan yihiin la marsiiyo adigu maxkamadda waa tagaysaa oo iska difaacaysaa hadda maxkamadda haddii la iga yeero maba diidi karaba diyaar u tahay maxkamadda maba diidi karaba de waa sharci ma diidi karo xogta aan kuu sheegayana waliba waa 10% ka badan baan hayaa oo nayada khusayso u sheegi karaa 22 July 2022 agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee hadda xilka haya Mahad Salaad Maxamed bartiisa Facebooka wuxuu ku qoray oo uu sheegay in kiiska khaarijinta sargaalad Ikraan Tahliil aad soo maleegtay adiga Cabdullaahi Kolanajiis iyo Yaasiin Fareyna uu ahaa fuliyihii kiiska ee gacanta ku lahaa sidaas ma jirtaa أنا فيسبوك ملهي دوسها قرينا وامقلا إنه قري قف بأي شيء إنه قري إنه ليه كم آخر سنين لكن أيضا الافتقاد عدينا أيضا الافتقاد شكئة حلبان مقالة اسكت جوجا محق لي إنه ده هبل الدلي هبل الدلي هبل الدلي ما هي سردان بو شقيا مربحين سردان بو هلا يا أشياء حقتان حتى رئيس الوزراء أمركم إذا عدوا سوي استاجر أنت داي شيء يا أشياء حقتان إن مركب أصيدا ده كل جيدا وحيتون أبو رسام حكيس كان صور حق لي واي وكيس كان وصل دونت وقف ربع جريمة وسميه إنه ضد كلا كوبين أبورته كيس كان أنتي وسعودي ضد الصومالية يضلك حليس أيوة قال حليس تاس وهايد إن تقال سكية قرق الله فورو يقرأ على 6 دولة الصومالية وحليس قليل مقناشها سرقالد iyo gabar Soomaaliyeed oo hay'addan oo isku soo ka tirsanay oo muwaadin Soomaaliyeed oo sidiisaba ay tahay in xuquuqdiisa la dhowro sababta aan u aamusnay anaga inaan dalka looga sii darin mid kamid ah waa inaan dalka aan looga sii darin muwaadinka iyo dalka hadda xogta cidii khusuusay waa u sheegnay asagoo ra'iisul waa og yahay hay'adii khusuusayna waa og yihiin ma la kulantay xilaalintu ma kula kulantay maxkamadda ciidamada adiga Fahad ma ku wareysatay ما يحلالين هذا كيس كوحن كلها إذا عدنا كده جيست أنا كلية إن كيس كلا بلابن إذا عدنا كده جيست إن كان كلا سميان إذا عدنا كده جيست كل ما كل من باريس تحنكم موجودين حلالين هذا هي أدونم بيلا كلنت هذه لكن شخصيا كل ما عد كستي لا كلنت قف كستي لا كلنت أنا جاي لا كلنت سلاكي شكله لا كلنت عدول بي وريست كيسك إكران وحدي شكتي توم بقول كيبا حكت أتكهيست نادن يوه الشيء حديدي أنا ولا شكت هي أداء خصيصا أو شيء جاية قرمة وقتي مناسب نقطة قام وقتي أي كوب هبونت أنا الشيء markii kiiskan uu dhacay warqad baa soo saartay risaaruhu ku yiri warbixinii soo gudbi warbixintii horena kuma qanacin warbixintaasi luqadda ay ku qornayd aad bay ugu hooseysay xushmad ra'iisul wasaare oo golaha xufulinta u sareeya in loo qoro waa tiri golaha amniga qaranka imow halkaas ayaan warbixinta ku jeedinayaa luqadeedu ahay walaalo ani ma aqaan sababta aad u tiri way hooseysay because amniga dalka hay'adda ugu sareysa waa guddiga amniga qaranka oo wasiirka cadaaladda wasiirka amniga wasiirka shaandhiga wasiiradaas ay fadhiyaan gobernatooraha muqdisho uu fadhiyo madaxweynaha fadhiyo ra'iisul wasaaraha fadhiyo taliyayaasha ciidamada fadhiyaan aniga marka xogta aan hayay haddaan dib hadda ku xusuusiyo wareysiga maanta aan ku siinayo iyo xogta maanta aan ku siinayo iyo warqadda maalintaas aan soo saaray waa islahayd because sidee baan xogta u siiyaa qofka dembiga sameeyey sidee baan asaga u address gareeyaa oo warbixin ugu gudbiyaa hadduu asaga qayb ka yahay ma ninkii xukumayey iyo ninkii dembiga galay baan isku mid ka dhigaa inaan marka maalintaas dalbaday meel aan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ahayn inaan xogta siiyo waxay ku tusaysaa xogta aan hayay sensitivity-geeda iyo jihada aan rabay inaan wajahayo haddii aan ogaan lahaa oo ay ahaan lahayd inuu beri ka yahay qofka ugu horeeyaan siin lahaa buu ahaan lahaa waana sababtaan uga leexday ehelka gabadha hooyadeed inaad kulanteen
ay saxaafadda ka sheegtay adigana waa ii sheegtay dad maqaatiyana idila joogeen maxaa ku tiri intaas aan kuu sheegay waxaan ku yidhi hooyo khad baan hayaa khayd baan hayaa xarig baan hayaa inta xarigaas uu iga dhammaanaya iga warsug wax tallaabaana ha qaadina warbixin dhammaystiran anaa kuu keenaya sargaal ka tirsan hay-adda ma u dirtay oo gurigeeda ma kula kulmay markaad xogtan heshay kadib kulankaas ka bacdi sargaal uu la kulmay wuu la kulmay waxaana u sheegnay hooyo idaacadaha aad ka hadlayso iska jooji naga warsug annaga laakiin markaan aragnay hooyo inay idaacaddii istaagtay idaacaddii ka hadlayso ra-iisul wasaarihii laftigiisaba uu sii boonbooninaya warkii waxaa socday wax kale mu'aamaradda aan kuu sheegayaa socotay laakiin familka uusan ka warqabin xaqiiqadan ogeyn maxaad qoyska ula wadaagi weyda maadaama aad si shakhsiya xataa qoyskaada u garanaysa haddee wixii duruufihii jiray oo siyaasiga ahaydoo markaas jiray waa aniga kuu sheegay intaas shay oon ilaalinaynay bay qayb ka mid ahayd markii aad ka laabatay halkii aad joogtay markii falkan u dhacayay Djibouti baa tagtay intaanan kiiskaas u gudbin alcadaala iyo mahad salaad iyo rooble waxaad noo sheegtay inay yihiin cidda soomaalida ah ee kiiskaas abaabushay maxay ahayd annaga ma hayno mana xaqiijin karna eedayntaada laakiin maxay ahayd ujeedaday ka lahaan kareen adigu xogtaad ogaatay aad hesheen cidda ajnabiga ma ka wadaa mise waxa ka wadaa Soomaalida hadda waxaan ku dhahay waxaa la rabay in hay-adaha amniga la burburiyo dalkana qalalaasa la geliyo haddayse intaas ahayn waay aniga Djibouti laygu xanibay haddii dembi laygu hayay maxaa xamar inaa imaado laygu ogolaan waayo xataa diyaarad khaasaan ku tegay markaan tegayo ku laabanaya Djibouti markii laga celiyay kabacdi diyaarad khaasaan qaatay diyaaradii khaaskayd waxaa la isku dayay elaboorka inta la soo galo in baabuur cabdibilaa wadada lagu xiro Djibouti qisadeeda iga war walaalow Djibouti waxaa dhacay ilaa hadda waa fahmi la'ah dal Soomaali ah Soomaali ku hadla isku dhaqannahay isku diinnahay sababta beegsiga intaas la eg ay aniga iigu sameeyeen waxaan garan waayo waxaan rabaa markii ugu horreysay inaan kuu sheego qorshaha in la xiro ma ahayn in la xanimo ma ahayn shirqool nafteeda lagu khatar gelinayo oo ku dhamaanaya Fahad Yaasiin waa la waayay in la sameeyo ahayd laakiin asbaabo dhacay oo aan hadda ka sheegi karo mid ka mid ah statementigii madaxtooyada ka soo baxay ee madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa laga soo saaray ee dowladda Djibouti loogu sheegay haddii Fahad Yaasiin amnigiisa uu wax gaaro inay dowladda Djibouti mas'uul ka noqonayso inaan maanta nool hoon ka hor fadhiyo ayadaa sabab u ah hadduusan statementigaa soo bixi lahayn waxaa laga yaabaa wax kale inay dhici lahaayeen waxa dhacayna waxay ahayd militariga Djibouti baa ogaaday hay-adihii dowladda Djibouti baa ogaatay shirqoolkii wuu fashilmay taasaa keentay in diyaaraddii lagu soo celiyo iyo diyaaraddii Turkish Airlines oo aan saarnaa oo iyada laftigeeda tiri kama tegayno rakaabka naga qof saarnaa waana waxay ka mid tahay xeerarka caalamiga ee adduunyada ay ka jiro marka runtii waxyaabaha yaabka leh ay ka mid tahay qof la leeyahay gabar baa loo haystaa lagu celcelinayo haddana asagii la shirqoolayo mu'aamarada xajmiga la egtahay ku tusinaysaa laakiin shayga aniga aan la yaabanahay waxaa waa ilaa hadda aanan fahmin dowladda Djibouti shacabkeedana ixtiraam iyo walaalnimo iyo qadarin baan u hayaa shaki bay mararka qaar gelinaysaa maxaa geliyay mu'aamarada intaan la ganay soo dhaxgasho askarta ila hadlaysa hal su'aal baan weydiinay wadankiina Djibouti wax dhibaaya miyaa idinku sameeyay waxay ugu jawaabeen maya wax Soomaali ka dhaxay maxaa idinku soo dhaxgalaysaan baan ku yiri waay maxay ku sheegeen in sababtu maxay tahay lagu hakanay UK amarka waxaa la isku dayay shirqoolka asalkiisu ma ahaynba in aniga Djibouti lagu xanibay waxay in la waayo maxaa la jeedaa wax kale oo fara badan qorshaysnaa xarga fara badan oo ajnabi ah isku xirnaa oo dawladda leh oo Djibouti kaliya ku ekeen oo xukuumadii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooblana uu qayb ka ahaa asaga safaaradda Djibouti wacay asaga dawladda Djibouti wacay asaga taliyaha booliska Djibouti wacay caddayn ma haysaa caddayn fara badan baan u hayaa qofka aniga Djibouti ugu xanibay waa taliyaha booliska Djibouti oo hadda xilka laga qaaday asaga waa qofka xanibay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele markaa dalka uu ka maqnaa ma huwa aniga laakiin waxa la sheegay sabab caafimaad u maqnaa laakiin madaxda Djibouti qayb ka mid ah markaan si cadaalad u dhaho markay warbaahinta ku arkeen mas'uul Soomaaliyeed oo wadanka Djibouti lagu haysto way ka xumaadeen talaabayna ka qaadeen talaabadaasana keentay inaan ka soo baxo laakiin taliyaha booliska Djibouti Cabdullaahi baa mas'uulka ah wixii meesha ka dhacay
caqligaygu ilaa hadda wuxuu diidayaa sidee dowlad Soomaaliyeed qof Jabuutiyaan u dhibaateyn kartaa sidee bay dowladda Jabuuti ugu dhiiran kartaa inay qof Soomaali dhibaateyso laakiin maanta markaan leeyahay walaalnimada soo jireenka dhaqanka taariikhda naga dhaxeeya ilaa haddana waxay ka faa'iideen baan garan lahaa Jabuuti waxaad sheegtay dowladda ajnabiga inay ka shaqeeyaan kiiska meesha ka dhacayna waa Jabuuti jamhuuriyadda Jabuuti dowladda ajnabiga ayaa waa ee Jabuuti ka baxsan waa shabakad isku wada xirnayd oo kiiska dhan isla waday waxa marka bilaabanaysay dowladda kale soo mareysay Jabuutina shirqoolka lagu riday dowladaha kale ma raba haddaynan galo Jabuuti magaceeda xataa ma sheegeen laakiin waxaan u sheegay waa meesha ficil ka dhacay hadduu ficil ka dhici lahayn ma sheegin maxaa dareentay markii lagu yiri diyaaradaadu ma kacayso xamar ma aadayso والله filan waa igu ahayd ilaa hadda filan waa bay igu tahay ilaa maanta aan kula hadlayo waay dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti ay mas'uul Soomaaliyeed saan ugu sameeyeen waay abtunaaga ma fahamsani sababtoo haddaan ogaan lahaa waana u sheegay haddaan ogaan lahaa qof Soomaali ah oo muwaadin ah oo mas'uul ah in lagu dhibaateyn doono Jabuuti waxaan ku yiri transit madin ku soo mari lahaa waxay yiraahdeen maya marka su'aashaas aniga dowladda Jabuuti hadda ma rabo inaan weydiiyo laakiin waxaan rabaa inaan shacabka Jabuuti u hortaalo oo shacabka Jabuuti iga jawaabaan waay dowladoodu ee dhibaatada intaas leeg mas'uul Soomaaliyeed ugu geystay fahad waxa aaminsan tahay Jabuuti inaad ka badbaadid sida aad carab ku dhufanis qorshayaal saxiixay qorshayaal saxiixay marka uu la jeedo mashruuc dil baa ula jeedaa shirqool wuxuu ahaa aniga dhan in la waayo ma garan karo ma in la dilo ku dhamaanayay ma in wadan kale la isi dhiibo ku dhamaanayay ma in dhibaato kale ugu dhacdo ku dhamaanayay leena ficilada dhacay hadda aan rabin inaan ka sheekeeyo meesha dhexdeeda ka dhacay ficiladaas kulligood waxay tusinayeen shirqool kale inuu jiray haddii diyaaradda Turkish Airlines aan saarnaa aysan khasbi lahayn in diyaaradda la igu soo celiyo oo diyaaradda la soo saaro aysan khasbi lahayn dad mas'uuliyiin oo dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti wax aad iyo aad u foolxun baa dhici lahaa diyaarad kale inaad goosataan maqlay markii aad Turkish Airlines lagu diiday inaad raacdo ما أيوة تركيا لين راعي ميدين أيوة سي sophisticated مركور وشقيان إلى واحد كشفمين ما هو اللي بوقرا يا سحر فضله مركور وشقيان ديار ده هالليسن هو ده نجاه هالليسن لبارك تيجت كجان حفيز كمجريش كان شقيانين وحيسكت ضيان أنت الله علي أنت أي sophisticated اسكتلي كران ويسكتلي بالمناسبة أنا وارهم يستأني ضدك أوري يسوي عي وحنقول هاي واحد باتان مجران وحباها هالليسن وحها هالليسن وعلى صحيح ساسان أنا أقول رميستيبا because شر ما في لينين تليها بوليس كماركت مركادي كل كل مركز با ها ما لا هذا الشيء كده ما سوي له هذا يا محمد هيا سيفو جاتي حقتان مرك حقت حوجات بانوها مؤامرة دون بناها ها سفارة دي صوماليا جيبوتي كلها يبقى يريد تميد اللود دي دني يتمادوا صورها لقى قاضي صورها سفالة كايد صورها أنا أقيم بالله قاضي دول جيبوتي أنا قاضي أيق أنا فافيه كل ما أقين قارو حي هايان صور هذا قال كل رجل قارنا وحندريمي بوليس كي يمد بقى قاضي لكن صور حتى اللي يقف سحقاتنا ما هين صور اللي يقف قاعدين ما أنا أقامك اللي قاضي أنا ما هين تصور سنة زين يكون فهنا ينبع واحد حي ويسنقر سنين كيسكي إكرام مركلة waxaad sheegtay in xogtiisa 10% kaliya aad baahisay aad iyo ogolaatin aad sheegto inta kale 90% waa xogtii ugu badnayd waa goorma sheegaysa waqti ay ku haboon tahay iyo cid ku haboon madareemaysa walacna ma kugu haysaa in maqnaanshaha gabadhaas ay qoyskeedii oo aan ogeyn raqiyo ruux dawladdu ay sheegtay wali hay'adda nisaa'ada joogta ay sheegteen ashaab dileen shaab diideen oo inkireen oo dheheen annagu maana dilin ra'iisul wasaaraha qaranku yiri dadkii ka dambeeyay cadaaladdan hor istaajinayna oo baarlamaanka ka reebayna adiga kaligaana baarlamaanka ka maqanta maxaad dareemaysaa ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda fiiri baarlamaanka in aniga leeyaga xanibo waa wixii ugu sahlanaa oo dhacay adii aqligaaga isticmaal dadkana dhageysanayaan aqligooda isticmaalayaan kiis baa qofkan lagu hayaa
wadanka loo diidan yahay xildhibaannimada loo diidayaa xilkaa lagu haystaa hay-adii baa la qalalaaseynaya ku-xigay qof baa banaanka laga keenayaa amniga oo dhan baa la burburinayaa oo si kasi loo burburinayaa waayo hal case haddii la rabo in la xaliyo qofkii khusayso inuu wadanka soo galo oo la weydiiyaaba sahlane waayo in la ogolaado guddiga amniga warbixinta in la siiyaaba sahlane oo ra-iisul wasaaruhu meesha isku difaaco oo ciddii khusaysa meesha isku difaacaan maxaa loo diidaa aniga way dhibaysaa waana sababta hadda warbixinta u dhiibayo waxaa dhibaya in qof dalka 3 qof oo ugu sareysa ama 4 qof oo ugu sareysa kamida intuu dambi galay uu dambigiisa ku qaranayo inuu hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu dambiilo ka dhigo haddana hay'adda inay hadasho loo diidayo haddana qofkii ugu sareeyay loo diidayo inuu warbixin dhiibo ra'iisul wasaaruhu isla habeenkaas uu kiiska ka hadlay cadaaladda xildhibaanada lagu reebay xildhibaan Aamina ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Beledweyne Allah u naxariistay xildhibaan Aamina aad uma garan Aamina qof wanaagsan oo qiimo badan oo wadanka u shaqeynaysa bay ahayd بالمناسبة الله نحرسته وحي أهي دتكي مدحوين حسن الشيخ مركي أن كان بينكي كمد أها 2012 أيضا كمد أهيد حزب يو بي دي أساسي أشي سي كمد أهيد أقوان شخصية احترام يقدرين فرب بدن بانا قد حيس كيسك قوردن إكران آد وقا هذا الشيء أين هاد حلبانك كلية عدالة وكرادين تيدك الشغلينيس انتي أي سعوتي مرة مساركتين كيسك مايا أنا قانا إلا ما يسو حريرين أنا لما حريرين لكن الله نحرسته dambigeeda Allah dhaafo waxaan qiyaasayaa inay rumaysatay warbixintii xafiiska ra'iisul wasaaraha laga dhiibay taasoo rumaysatay runtiina marka ay dhimatay xataa kaliya uma dhahayo qof aan ku aqaanay waaye qof wanaagsan inay tahay haddii xogta saxda ah ay heli lahayd waxa laga yaabaa inay si kale u fikri lahayd laakiin xogtii markaas haysatay ma ima soo raadinin ayadoo idaacadaha ka hadlaysana waa arkay marka meel aan wax ka sixi karo ma joogin dhimashadeedii iyo dilkeedii waxa lala xiriirinayaa isla kiiskii Ikraan Tahliil inuu ahaa shabakad isku xiran oo arinta wada aabshay dadka lagu eedeynayna mar kale kiiska aaminana qayb ayaad ka tahay horta erigaas qof dhahay ma jiro ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri gacantii Ikraan dishay ayaa dishay oo aan baarlamaanka ka reebi doon waa duwan tahay hadee ra'iisul wasaaruhu magac ma sheegin horta soo magac ma sheegin hay'adna ma sheegin laakiin wuxuu sheegay in tareed isaga laftirkiisu dareemayo oo isaga loo soo hanjabayo oo yaqaan telefoonadii message-da looga soo diray uu ka dareemayo muu sheegin mugta waxna waa faham waxna waa hadalka ra'iisul wasaaraha afkiisa ka yiri laakiin waxa yaab kale waxa waaye ra'iisul wasaaraha xogta intaas la eg hay'adda siisay asaga iyo hay'adda sirdoonka xiriir ma lahayn markaas wada shaqeyn ma lahayn see ku gaata hay'adda ma joogin markaas hadii hay'adda laga ilaalinayaan ku yiri inuu soo dhaxgalaa laga ilaalinayo in la macaamalo laga ilaalinayo مدام كرايم سمي نتكي إلى مركز هذه هيئة سردونك وسن حكي هلين لمبرتو حكتان أو هايستو محط لعبة وقاعد ورئيس الوزراء ذلك محو فعلوا سمين واحد هدو أجي هاي عدي وحوحو يري ونوجه ومضى سماد اللي ذاكن تلاعب ما قاعدين وحما سمينين محي كنت سنة يعني in ra'iisul wasaarihii qaranku uu eedaa jeediyay adna maanta eedaa u jeedisid waa wax weyn marka laga hadlayo nidaamka dawladnimada maanta oo la joogo labadiina way xilmaaysan ra'iisul wasaaruhuna waa ra'iisul wasaare xil gaarsiina ra'iisul wasaare waa xilka u hayaa ra'iisul wasaare xilka si degay waaye adigana taliyihii hore ee madaxweynaha iyo agaasimihii hore ee nisaad qof shacaba oo waxa tahay Soomaaliyeed xogtaad bixinaysid waa xog weyn ra'iisul wasaaraha marna isku dayay inaad kala hadashid intii khilaafkeenu u bilowday kiiska ku saabsan gabadha inaad si toos ugu sheegto ra'iisul wasaare sida ay sidaas ka dhacday mar waxaa jirtay su'aasha hadal aad iyo aad muhiim u soo xusuusiyay waan hadal marqaati leh mar waxaa jirtay madaxda qaranka ay fadhiyeen mar raba magacyada aan sheego laakiin dadkii ogaa oo dhan way joogaan ilaa 9 qof oo madaxda qaranka ah fadhiday hortooda ayuu ra'iisul wasaaruhu kitaabku maray oo yiri magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa Ikraan inuusan faahna shuqul ku lahayn niisana shuqul ku lahayn laakiin wuxuu yiri siyaasadda ay la gashay hadalka dadkii hortooda ka yiri waa nool yihiin marqaati noolna waa intii uu ka soo laabtay safarkii qadar ra'iisul wasaaruhu miya ما حسوسته مستفر كهوري مش هذا الكهوري تام حسوسته
waa mahadsantahay Fahad Yaasiin kiiska sargaalad Ikraan Tahliil intaas haddaad ii ogolaatid inaan uga gudbo ayaan jeclaan lahaa waa kiis weyn 90% xogtiisii aad wali qarinaysid sida aad sheegtayna aad la sugaysid meel ku munaasaba ma garanayo meel kale oo aad geyn doontid ama aad kala hadli doontid iyo cid kale waxaan u gudbayaa nisa maanta waxaa xukuma mahad salaad waa maxay aragtida magacaabidiisa maxaad ka aaminsantahay